haddaan raba inaan ducaysto ama ilaahay aan baryo waxa ugu fiican oon ilaahay weydiisanayo waa maxay? وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. البرنامج كان لي يراهدو 4 والبو يدعو عصب وبرنامج أسبوع له ماني والبو 4 هل دعو آدو قابن آدو قيمة بدن أيان سوسي ديننا إن شاء الله تعالى. أديقنا وحالة قاربا إنا دقيستid أود حفظيسد كدعويستid ولا لها كلانه وسي قد بسد بخير هنقولين خير الله بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال ميل والبأدونك كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة دي 8 وبرنامج كي أها 4 والبقية دعاء حسب دعاء قابل وآد وقيمة بدن. ولا ليال حلقة دي لصور دافي وحلقة دي 7 waxaan idiin ballan qaaday inaan idiin soo gudbin doono ducooyin aad u qiimo badan oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markasta uu ku duceysan jiray. walaalayaal Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxyaalo badan uu ku duceysan jiray, laakiin waxaa jirtay ducooyin khaas ah markasta uu ku duceysan jiray. waxa ugu horeeyo Nabi Muhammad ilaahay weydiisan jiray waxa waay al-hidaayah, inuu ilaahay hanuuniyo. haddaba siduu u weydiisan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam? muxuu dhihi jiray iyo goormuu weydiisan jiray, goormuu ku duceysan jiray ducooyinkan? walaalayaal intaanan su'aalooyinkan ka jawaabin waxaan rabaa inaan kuu sheego hidaayada qiimahay leedahay, booskay ku fadhiso. waxa ugu horeeyo ugu muhiimsan arkaanta islaamka markii tawxiidka laga soo tagay shahaadada waa salaada waaye. salaadane waxaa jirto rukniga ugu muhiimsan oo haddaa ka tagtid salaadaada waxba ka jirin waxaa waaye suurat al-faatixa. suurat al-faatixa inaa aqrisid salaad walbo ragcad walba salaad walba ragcad walba waajibay kugu tahay. suurat al-faatixa oo suuradda ugu fadliga badan oo qur'aanka ku jirto waxaa ku jirta aayadaasna waxaa waaye ihdina as-siraata al-mustaqiim. idan suuradda ugu fadliga badan qur'aanka waxaa ku jirto aayad ilaahay ku weydiisanaysid hanuun. rukniga ugu muhiimsan oo qofka hadduu sameyn waayo diinta ka saaraysana waxaa waaye salaada. salaadaasna ragcad walba waxaa waajib laga dhigay, bal rukni laga dhigay inaad suuradaas ku aqrisatid. suuradaasna ilaahay waxaa ku weydiisanaysaa hanuun. النبي محمد صلى الله عليه وسلم waxaa ka sugnaaday xadiith al-qudsi. ilaahay wuxuu leeyahay yaa cibaadi kullukum daalun ilaa man hadayta. kulligiina waa luunsantay ilaa qofka aniga hanuuniye maahine. ilaaha dhahay ee fastahduunii hanuun i weydiista waan idin hanuuninahay. walaalayaal Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siyaabo kala duwan u weydiisan jiray ama siyaabo kala duwan ayuu u dhihi jiray, iyadoo gaaban iyadoo dheer marba siyuu dhihi jiray. qaar ka mid ah ayaa idin la wadaagi doonaa insha Allah tacaala. qaar ka mid ah asigaa ku duceysan jiray, qaar ka mid ahna asxaabtiisuu baray, qaar ka mid ahna si xadiid ahaan uu noogu sheegay. tan labaad siyaabuhu u weydiisan jiray, siduu u weydiisan jiray, muxuu dhihi jiray markuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam rabo inuu ilaahay hidaayo weydiisto? muxuu dhihi jiray, siduu u duceysan jiray? ducooyinka waa maxay? ducada ugu horeyso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markasta wuxuu ku duceysan jiray ducadan: allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaafa wal-ghina. في دعاء 4 كلمة ككوبان. دعاء الإمام مسلم صوصاري في صحيحه 4 كلمة ككوبان وأدون أنكوسو كوبيسو، لكن 4 كلمة وحا أوجه الرئيس والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ويديسي وحاواي الهداية، إنو إلهي هنونيو، إلهو إهنوني، أسألك الهدى
هدى محاوية هدى ميشان وحاوية إلهو إهانوني الدنيا مركان جوغو ونكونو لها خيرك إيغو هنوني هدي خيرك لغو هنوني حمانتا والغا إلاليوا أديغو ننسان oo guri raadinaysid waa wareeri lahayd laakiin gurigi waa kan hadii lagu yiraahdo waa lagu soo hanuuniyay Soomahan taasoo kale waa ilaahu ihanuuni baatilka ilaahu iga saar xaqa ilaahu igu hanuuni dhinaca diinta ilaahu bidcada iga ilaali xaqa igu hanuuni dhinaca dambiga ilaahu iga ilaali wanaaga igu hanuuni jahliga iga saar ilaahayow cilmiga igu hanuuni diintaada dhan waxaa leedahay ilaahu ihanuuni baatilka iga soo saar shirkiga iga soo saar fasahaadka iga soo saar xumaanta iga soo saar ee khayrka igu hanuuni intaa kaliya dhinaca adduunyadayda xataa ilaahayow businessan gala qofaan rabaa inaan guursado gabadheed qofuu rabaa inuu guursado ilaahayow markasto waxa wanaagsan xataa noloshayda adduunyada igu hanuuni iskuulaan rabaa inaan dhigto ilaahayow kan ii fiican oo anigay anfacaayo diintayda anfacaayo ummadayda anfacaayo ilaahow igu hanuuni tijaaraan rabaa inaan samaysto businessaan rabaa inaan furto waa ku wareersana keen rabaa inaan qaato ilaahayow kan ugu fiican igu hanuuni marka markasto ku ducayso ducadan allahumma inni as'aluka alhuda والتقى والعفاف والغنى نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركزت إلهي ويدي سنجري أبي سلمة عبد الرحمن ابن عوف ننكر إلهه أبي سلمة أو عبد الرحمن ابن عوف دلي أيا وحو ويدي عائشة رضي الله عنها وحو كويري نبي محمد صلى الله عليه وسلم هبينكي مركو قيام الليل استهاجايو صلاة الليل مركو استهاجايو محوكو فرفران جري صلاة مركو انتو سنجلين محوده جري دعاء الاستفتاح على وذا مثلا صلاة مركا الله أكبر تراهد وحرتد وحاجرتو أذكار الآخر استاجرتو طيب هبينكي قيام الليل كوحو ربا مالنتي ولد جوغا لكن قيام الليل كلو مجيد النبي وحو ربا إنو يراهو قيام الليل كصلاة مركو قلايو دعاء استفتاح قوني موسى ميسن جري مسكنلو كدعو يسنجري عائشة رضي الله عنها وحيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو أقري سنجري اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بل نبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أيا أيمد وحويديس إنو دعبر رسولك صلى الله عليه وسلم وحوي وحا كدعو يستا وحا تراها علي يوم اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني إله إهنون الفيلم حالو بالله إله إهنوني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحويري سورة الفاتحة وحا صلاة لوغو فرض يالي علشان فيري هداية كجرت إلهي إنا ويديستت هداية ذا وحا ويديسني سيدنا وحا واي ابن آدم والبا وحو أباهيه إلا هنوني ابن آدم والبا وحو أباهيه كايرنس هنون أباهيه سيدا درتت إلهي سبحانه وتعالى سورة وكفر ديالي وحا كجرت اهدنا الصراط المستقيم يعني مالنتي وحاد أقرينيسا تضبئي طوامر أوغو يران واي أوغو يران قفكي سنة كان ويكسي بدن تحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هداية كليمو إلهي ويدي سنجري دعا دي سردان أوغو عن إلهي هنون باسمه ويدي سنجري ميس دعوين كالو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كد ذالي جري وآد أوغو دعوي سنجري أيا جرتو جوابتي ذا نوحاواي ها وي جرتا هدا ربتد إنا أوغاتدني وإنو 4 soo socoto iyo xalaqadii 9 iyo 10aad oo barnaamijkii ahaa 4 walba iyo duco cusub duco gaaban oo aad u qiimo badan ilaa 4 soo socota laga gaarayeen waxa laga rabaa inaad dhageysatid ka faa'iideysatid ku amal fashid
walaalaha kalene usii gudbisid bakhiil ha noqonin jazaakum allahu khayran بارك الله فيكم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو إلهي بريايو أما وحوي دي سنايو وحا أوغفي عن وكد سنجري وإلهي ويدي سنجري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. برنامج كان لي هذا 4 والبو يدعو عصب وبرنامج أسبوع له ماني والبو 4 هل دعو آدو قابا آدو قيمة بدن أيان سوسي ديننا إن شاء الله تعالى. أديقنا وحالة قاربا إنا دقيستي أود حفظي كدعوي ستيد ولا لها كلانه وسي قد بسيد بخير هنقول خير الله بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال ميل والبآد جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة سقال إيا طبانات وبرنامج كي أها 4 والبئيو دعاء عصب دعاء قابا وآد وقيمة بضن. ولا ليال حلقة لصو دافي أو إهد حلقة 18 وحان كسو شيكين دعو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مر والبكو دعوي سنجري آد أقو دعوي سنجري دعا ذاس نبي محمد صلى الله عليه وسلم محو أقو دعوي سنجري وكسو شيكيني وقت يدو كدعوي سنجريني وكسو شيكيني سيدو ugu duceysan jirayne waa ka soo sheekeynay. xalaqada dhamaadkeeda waxaan isweydiinay marka su'aal nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ducadaas kaliya muu ku duceysan jiray mise ducooyin kale aad u qiimo badan oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar walba ku duceysan jiray ayaa jirto. jawaabteedana waxaan dhahnay haa way jirtaa ducooyin kale nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar walba uu ku duceysan jiray. maantane ducadii labaada idin sheega. last week arbacadii la soo dhaaf waxaa idin sheegay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu mar kasta weydiisan jiray alhidaayah inuu ilaahay hanuuniyo. ducada maantana waxay ku saabsan tahay inaa ilaahay weydiisatid المغفرة ذنب داف إنه إلهي كو ذنب دافو مر والبو إنا ويديستي ولا لا يقف والبو النجا نجمد وحا خبال إنه مالي ذنب قراي أما ذنب هير هذا أما هوينا هذا تاس نار كيس. لكن قف والبو النجا ذنب ينقلنا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ابن آدم والبو قال دمار لكن أوفي عن وحوا كان صون نقضو إلهي دنب داف ويديستو إلهي دنب داف إن لو ويديستو أرين فضد معهن برنامج لنا أصمينا هذا حسوستان وثلاثة عن سود دينو شلي وكلا سود ديناي وليرا فضائل الاستغفار إنا إلهي دنب داف ويديستد فضائل شيء لا هاي. لكن ما أنت وحان ربا سبيسيفيك إنا كوشيغو دعوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركزتو أكو دعوي سنجري iyo waqti uu ku duceysan jiray. laakiin intaanan ku sheegin ducooyinku nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku duceysan jiray oo ilaahay dambi dhaaf ku weydiisan jiray waxaan rabaa inaan ku sheego waqtiyadu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ducadan aqrisan jiray ama ku duceysan jiray. walaalayaal nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ducooyinkan wuxuu ku duceysan jiray mar walba bal asxaabtiisa qaarkooda waxay u xisaabeen hal fadhi asigoo joogo 70 marka badan qaarkoodna 100 mar ay xisaabeen. macnaheeda waxaa waaye qofka mar walba inuu ilaahay u noqdo dambi dhaaf weydiisto maghfira ilaahu ii dambi dhaaf inaad tiraahid mar kasto. laakiin waxaa jirta waqtiyo khaas loo baahan yahay qofka inuu mar kasto ku duceysto. waxaa markaa dambi gashid waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo weysiisatid 2 ragcana tukatid ilaahayna weydiisatid tiraahido ilaahu ii dambi dhaaf. siyaalo badanaa jirto oo ilaahay lagu weydiisto inuu kuu dambi dhaafo. qaar ka mid ah maanta sheega bal inta ugu muhiimsan
ayaan kuu sheegaya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jiray ama ilaahu dembi dhaaf ku weydiisan jiray. walaalayaal, waqtiga ugu fiican oo lagu ducaysto ducadan waxaa waaye markaa sujuudsan tihiid. waxaa leedahay rabbi ighfir lii, allahumma ighfir lii dunuubii kullaha. waqtiga kalena ma taqaana bal waa rukni ka mid ah arkaanta salaada. rumaysanaysaa labada sujuud fadhiga u dhaxeeyo maxaa waaye? waa rukni waaye. maxaa la dhahay? rabbi ighfir lii yaa la dhahay. cajiib, labadaas fadhi waa fadhiga rukniga ah. haddaa sameey wey salaadaada waxba ka jirin. labadaas fadhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray rabbi ighfir lii warxamnii ayuu dhihi jiray. bal nebi maxamed sal ly slam wuxuu yihi qofkaan ducadan xifdin karin ha ku celceliyo rabbi ighfir lii, rabbi ighfir lii, rabbi ighfir lii ha ku celceliyo. idan waqtigaasna ilaahay dembi dhaaf weydiiso. ducooyinku nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku ducaysan jiray qaar ka mid saddex ka mid ah ayaan kuu sheegaa. tan koobaad, allahumma ighfir lii dunuubii kullaha صغيرها وكبيرها دقها وجلها ما علمت منها وما لم أعلم. الله أكبر. وحالذهي اللهم اغفر لي ذنوبي كلها. اللهم إلهي أكو بالله إلهي رحمن يا ربي الله يا أبوريو إيدن بدف اغفر لي ذنوبي كلها. دنبي قدن إيداف دنبي انت اسكو مجوجين وحوير صغيرها وكبيرها. تيذير ايو تيذوين صغيرها وكبيرها. دنبي قدن دقها وجلها ما علمت منها وما لم أعلم. تان أنيقو أوغهي يتان أوغين. يعني دنبي وحاجر تلاقيا بإني أكسيدنت أما كما كاقا دعضا لغيابا. إلهو تاسنا إيدن بداف تان أوغهي إنا سمييني إلهو إيدن بداف. متكلا جرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بري أبو بكر رضي الله عنه وكسو شيكيني والتحياتك مركا دميسد انت هذا كبحن لأقرستو. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. اللهم سيدو قلتنا اللهم أكو بالله بيسا إني ظلمت نفسي إذا ظلمي ذنبي وحيال بدنا أكو ظلمي إيه فاغفر لي ظلمي بدن ودعا هل ما ظلمي بدن أكو ظلمي إله إيه فاغفر لي إله إذن بداف مغفرة من عندك. مركا ترى وحاقريسا مركا لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهي وقف ذنب داف أو أديك إهين مجرى. إلهي إي ذنب داف أدون كاغان أحي. وحنكسو جبينينا دعاء أو في عن أو إلهي ذنب داف لقوي ديستو. سيد الاستغفار على دها استغفار تان أما الذنب داف كان إلهي لوي دي سنة يا سيد كيدا ووحول بوحي ليه المضح سومان مضح ميل كسر ريسو للصلاحة مجرت سومان. دعاء مركوات دعوينك إلهي الذنب داف لوي دي سيد كودا ماشي أو وصل ريسو نبي قابنو شيء سيد الاستغفار على دها. دعاء حدا صبحي إلهي كوي دي ستي أو أقرستي adigoo macnaheedana yaqaana yaqiinsan qalbiga ka yaqiinsan ilaa casirka intaan la gaarin hadaa dhimatid waa ahlu jannati insha Allah. casirka hadaa aqrisatidne adigoo macnaheeda yaqaano yaqiinsan waxay sheegaysane oon la gaarin salaada subax la gaarin maalinta kale la gaarin habeenka dhexdeeda aad dhimatii ilaahay kuu timaado ahlu jannah tahay. ciyaarmaya marka ducadan sayid الاستغفار saasaa lagu bixiyey. حديث كان وحو كجرا صحيح البخاري وكجرا دعاء صدوا محيتا يسا مركز توقد دعوة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. دعاء فيري اللهم أنت ربي إلهي أذيك ربي جاتي عبودية ما يشان قرت مرك إنه إلهي ربي جاتي خلقتني وأي أبورتي هذا أبورتي هو يدي أبيه جعشاه وأنا عبدك أدونك يا أخي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بلنتي أن كاقاضي إن المسلم هانا مركان دبرك أبيه آدم كجري أي ولتها جناه مسلم عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت إله هو دم ببضنه وحان كان مغان كلي وحياله بضنا سمي أبوء لك بنعمتك علي إلهي وحان كوقرا نعمة بضنا أسيسي وأبوء بذنبي ذنبي جيجا وكوقرا وكسهر لي إلهي فاغفر لي إله ذنبي داف فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قفان أدي أهيرو ما أنت ذنبي داف هايو مجرتو تبور عليال دعوينك aadka u qiimaha badan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar walba ku duceysan jiray waxa waaye inuu ilaahay hidaayo weydiisto inuu ilaahay hanuuniyo arbacada la soo dhaafan ka soo sheekeen wuxuu kaloo ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisan jiray inuu ilaahay u dambi dhaafo labadan bismiya mid kala jirto jawaabtana waxa waaye ha mid kala jirto laakiin waqtiga naga dhamaaday waa inuu arbacada soo socoto iyo دعاء سدحات ودعوينكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مر والبا كدعوي سنجري وبدين جري أصحابتي سبري أننا نودر دارمي إنهم كدعوي سنة أولا بينتي الله سبحانه وتعالى وحاوي ديسنا الدنبيين المضاف يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم آمين لها جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلهي تنبينا هدافو إلى 4 صوصات لا يقاراي وحايدين لقباهن يهي إنا دقيستان حفظ السان كعمل فشان ولا لهينا كلنا وسيقود بسين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو دعوي سنايو دعاء أوفي عنه كدعوي سنجري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. البرنامج كان لي هذا 4 والبو يدعو عصب وبرنامج أسبوع له ماني والبو 4 هل دعو آدو قابا آدو قيمة بدن أيان سوسي ديننا إن شاء الله تعالى أديقنا وحالة قاربا إنا دقيستid أود حفظيsid كدعويستid ولا لها كلانه وسي قد بسيد بخير هنقولين خير الله بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إله درتيس وجعله ميل والبآت جوبتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة ذي لباتنات وبرنامج كي أها 4 والبئيو دعاء عصب دعاء قابل وآد وقيمة بضن ولا لا الحلقة ذي لصور رافيو 9 طبانات إي حلقة ذي كهر ريسو 8 طبانات وحان كسو شيكيني لبدعو وآد وقيمة بضن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مركزتو كدعو سنجري ما أنتنا إن شاء الله تعالى وحان ربا إنان كل وذاقو دعادي سدحات أو كمد إهيد دعو يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم مر والبو كدعو سنجري ولا ليال دعاداسنا وحاواي إنا إلهي كم ينقشد نار جننا ويديستي الله أكبر إنا إلهي جنة ويديستي وإلهي جنة كسيو ليبان كوين مجرتو إلهي سبحانه وتعالى أسيقو أرنتا سنو شيغايو وحو قرآن كويري فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله أكبر. قفك النار تلقى بدباديو جنة لقلي وليباني
taas waa liibaanta runta ah. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markuu ilaahay naarta ka magangelayay jannadana weydiisanayay wuxuu og yahay inay taas tahay liibaanta runta ah. annagana nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuu inoo dardaarmay, axaadiid badan ayuu noogu sheegay, ducooyin badan ayaa ka sugnaatay. qaar ka mid ah ayaa idiin la wadaaga insha allah tacaala. laakiin intaan ducooyinkaas kula wadaagin waxaan rabaa inaan kuu sheego inaad ilaahay janno weydiisatid naarna ka magangashid waa camal aad u wanaagsan, waa sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. xataa haddaadan af carabi garanaynin, luqadaa rabtid ilaahay ku weydiiso. af soomaali haddaad taqaanid ku weydiiso, ilaahow naartaan kaa magangalay jannaan ku weydiistay dheh. af jayniis haddaad taqaanid ku weydiiso waxaa rabtid ku dheh. af carabiga haddaad taqaanidna way kaaga fiican tahay, haddaad ducooyinka xifdisidna way kaaga fiican tahay. ingilish haddaad ku ducooysanaysidne luqo kasto ilaahay wuu fahmaa. tan ugu fiican waa ducooyinka nebi maxamed sal alla alay wasalam ka sugnaatay, way gaaban yihiin xifdi. haddaadan xifdin karin luqadaa taqaanid, ilaahayna naar aaga magangal, jannane ku weydiiso, khayr allah ku siiye. caaisha radia allahu canha waxay tiri nebi maxamed ku sali sala allahu calayhi wasalam wuxuu i baray ducadan, waa ilaahayna naarta ka magan gasho jannana weydiisato. ducadana waxaa waaye اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. دعاء معنى هذا وحاواي وحالاذه اللهم إلهي أبوري أن عابدوي إني أني أسألك وحان كويدي سنة الجنة. هذا جمعتين إن على هذا أديك فامل كذا دعيس المسلمين تدعيس إني وحان كويد إني أنيجا أسألك وحان كويديسنا الجنة، إله الجنة أنا كويديستي وحان كلو كويديستي وما قرب إليها من قول أو عمل. وحكستو جنة إيدا وينايو حضر هالنقطة آية الكرسي كإناس أقري صلاة والبوفرد قضاشي هذا توحيد كينا يوديشيد. وحكستو حضر وإيدا ويناي جنة وكويديستي waxaan kaloo ku weydiistay camal kastoo ii dhaweynaayeen waa ku weydiistay salaad inaan tukado, dadka muslimiinta inaan caawiyo, camal kastoo khayr oo janno ii dhaweynaayeen waa ku weydiistay. waxaan kaloo waxaana kaa magan galay annaar, acuudu billah, ilaah waa kaa magan galay naartaas, iyo wamaa qaraba ilayha min qowlin aw camal. ama wax kastoo naartaas ii dhaweynaya, qowl ha noqdo hadal ama camal ha noqdo, wax la sameeyo ha noqoto. qowl dadka qaarkood waxaa la hadal inuu dhaho laakiin uu dhag uusan u dhigaynin, naarta 70 sano uu dhigo. waxa afkaaga ka soo baxaya ilaali, khayr allah ku sii, lana carabkan wuxuu ku sameeyaa naar ku gali kartaa, jannana ku gali kartaa. waxaan kaloo kaa magangeliyaa camal kastoo ii dhaweynayo zina, faaxisho, ilaahu taasna waa kaa magangalay. jannada in la weydiisto, naartana laga magangalo, saxaabada xataa waa samayn jireen. maalin maalmaha ka mid ah nebi maxamed sal allahu alay wasalam ninuu arkay salaaduu ka bax wuu ducooysanaa. markaasuu yidhi maxaa ku ducooysanaysay? ninkii wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah laa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaad. yaa rasuul allah waxaa sheegays maantanan aqrinaysid iyo mucaad ninka aan waxa bartays wuxuu aqrinay ma aqaanani waxaas, laakiin ilaahay jannaan weydiistay, naartana waa ka magangalaa. nebi maxamed ku sali sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi xawlahaanu dandan waxaan aan aqrinayn wujeeda maantana gacmo kala taagayno aan saas dhahoyna haa ilaahay jannaan weydiisanaa, naaraan ka magangalnaa. waxaa samaynaysid waa saxee kuwad ilaahay janno weydiiso, naarna ka magangal. ilaahay in naarta laga magangalo waxay ka mid tahay calaamooyinka cibaad الرحمن. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إلهيو نجبت بادي نارت جهنم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو شيء حديث صحيح وحو يري قفكي كدعو يستدعى صبح والبسد أحمر قلب والبنا سد أحمر جنة وحيلاده إلهيو هبل إسو جيلي وإكاوي ديستي نارتنا وحيلاده إلهيو هبل أما هبلو
إيغا مغنجل وإيكا مغنجلي جنة جلي أنا أكتيدها كينين اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار دعاء قابل إلهي وحان كوي ديستي جنة وحان كامغان قالي نار صبحين سدح مركو دعيسو قلبتين سدح مركو دعيسو أهل الجنة الله نقدقو نار تاني الله نقبت باديو آمين لها ولا ليال إنو إلهي نار تكابت باديو أهل الجنة نقطت والليبان سيد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سنوه الشيء آية كبت إلى وحول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفكي لقبت باديو نارتا جنة قلب وليباني إلهي سبحانه وتعالى آية كلنا وحو كيري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ليبانتا رنتا ليبانتا وين ليبانتا وقف والبربو واتاس نارتنا إلا قبت باديو جنة لقليو إله وحان كوي ديسني بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إنا نارتنا قبت باديسي أهل الجنة نقدكتد اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار إله الجنة كوي ديسني نارتني وكاما قنقلني آمين أولا بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء باسمه كدعو يسنجري جوابته وحاواي مايا حلقة دي سديد إيطوانات واكسو شاكين الدعاء وقيمة بدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه كدعو يسنجري كنقو حلقة دي سقال إيطوانات واكسو شاكين الدعاء كالو وقيمة بدن النبي محمد مركز كدعو يسنجري حلقة لباتنا وضمانتنا واكشاكين الدعاء آدك وقيمة بدن إلى إله النار كما ينقشد جنة ويديستد دعاء كلما نور لمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز كدعو يسنجري جوابتنا وحاوي ها هدا ربتد إنا أغاتدنه وإنو 4 صوصعته يكو دافن 4 صوصعت والدعو آد وقيمة بدنو آد وفائدة بدنو كل يبانيست إن شاء الله تعالى إلى 4 صوصعت لغا قارين وحا لغا ربا إنا دقيستد حفظيست كفائديستد كعمل فشد ولا لها كلنا أسيقود بسد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم خيرك أكتاذا يو استاغن كليب كان سيقود بي أما أذيق حفظي وددك هذا أوقفي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز تكدعو يسنجيري أذير كيس عباسنا أوبر مركوير الدعاء عن إبر محيطة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين برنامج كان لي يراهدو 4 والبو يدعو عصب وبرنامج أسبوع له ماني والبو 4 هل دعو آد وقابا آد وقيمة بدن أيان سوسي ديننا إن شاء الله تعالى أديقنا وحالة ربا إنا دقيستي أود حفظيستي كدعويستي ولا لها كلانه وسي قد بسيد بخيل هنقولين خير الله بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إلهي درتي سأجعلها ميل والبآد جوتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة كو إيا لباتنات وبرنامج كي أها 4 والبئية دعاء عصب دعاء قابا وآد وقيمة بضن ولا ليال حلقة لصو دافو اهيد حلقة لباتنات مركان كسو شاكين الدعاء آدك أقيمها بدنيت أو اهيد إنا إلهي جنة ويديستي نارنا كما ينقشد حلقة دمات كذا سؤالا اسويديني نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء اسكلية ميو كدعو سنجري
mise ducooyin kaloo ku ducooysan jiray? jawaabtana waxaan dhahnay ducooyin kaloo ku ducooysan jiray. qaar ka mid ahna waa soo sheegnay xalaqada 18 iyo xalaqada 19 ayaan kusoo sheegnay. qaar kalena way jiraan oo waxaan dhahnay arbacada soo socoto ayaan idin sheegi doonaa. ballanteena waa la gaaray. maanta waxaan rabaa marka inaan kuu sheego duco aada u qiimo badan nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ku ducooysan jiray. adeerkiisa cabaas ibni cabdilmutalib markuu weydiistay inuu duco fiican barana ducadaas baray, annagana na amray inaan samayno. loo baahan yahay qof walboo annaga naga mida subaxii iyo galabtii inuu ku ducaysto. nebi maxamed ku salli sallallahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah mimbarkuu istaagay, wuu khudbadeeyey, kadibna wuu ooyey. nebi maxamed oo wuu ooyey. markaasuu wuxuu yidhi salu llaha alcaafiya, ilaahay weydiista caafiya, alcaafiya weydiista. faina axada lam yucta khayra min alcaafiya, war ilaahay weydiista caafiya. wallaahi qof lama siinin uu yidhi nebi sal alla alay wasalam yaqiinta kadib, iimaanka kadib, caafiya wax ka fiican. salu llaha alcaafiya, marka ilaahay waxaa weydiisataan alcaafiya ama alcafu walcaafiya. ibn cumar radia allahu canhumaa wuxuu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kamuusan tegi jirin subax walbo iyo galab walbo inuu yidhaaho ducadan: allaahumma innii as'aluka alcaafiya fi ddunyaa waalaakhira, allaahumma innii as'aluka alcafwa waalcaafiya fi diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii, allaahumma astur cawraatii wa aamin rawcaatii, allaahumma axfadnii min bayni yadaya wa min khalfii وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سي أقيم بضانتي ومعانتي الدعاء. مالين مالمها كمده عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيا وحو يمد ويلكو أذيركو أها، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أها وحو كويري wiilka walaalkeeyo waxaan rabaa inaa i bartid arrin oon ku ducaysto ama duco aan ku ducaysto. cabaas ibn cabdilmutalib radia allahu canhu markuu su-aasha weydiiyey wuu iska baxay. haddana maalin kaluu soo noqday, wuxuu yidhi yaa rasuul allah callimnii, waxaad i bartaa khayran, khayr i bar. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yaa cabaasow yaa cama annabiy, nebi maxamed adeerkiisow, ilaahay waxaad weydiisataa almucaafaa, ama ilaahay waxaa weydiisataa alcafwa waalcaafiya fi ddunyaa waalaakhira. haddaba ducadoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam adeerkiis baray inuu ku ducaysto maxaa waaye? allaahumma innii as'aluka alcafwa waalcaafiya fi ddunyaa waalaakhira, ama اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. بل نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كلو أبا هريرة ورنا رضي الله عنه وحويري ما من دعوة مجرت الدعاء وكدعوي سنايا الدون كدعوي سنايا كفض بضن إنو إلهي ويديستو المعافاة في الدنيا والآخرة، أما العافية في الدنيا والآخرة. لبضس حديث بوحي كجران صحيح الجامع. حديث ككوبات عباس رضي الله عنه مركو إيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحير علمني خيرا وخير إبر. هذا المر لباضو كعلي نبي وحير عباس نبي أدير كيسو إلهي وحد ويديستا العفو والعافية. حديث كلاباتني أبو هريرة ورناية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوليه دعو الدون كدعو يستوحى أغفي عن أفضل دعاء وحى أغفي عن إنه إلهي ويديستو المعافاة في الدنيا والآخرة، أما العافية في الدنيا والآخرة. هدبا دعوين كان معنى هذا
محاور. لكن أنت معناها كوشي وحا ربا إنهم كودر حديثك أبو بكر رضي الله عنه مالما المها كميد الددك ويمي وأخذ بدي وحويري قفك أدونك وحلصي وحا أغفي عن اليقين والمعافاة. قف الدون وحلصي وحا أغفي عن إنه يقين قلبي سقره إنه إلهي معافاسي. معافاة معنى هذا مركا هذا أغانينا إن شاء الله. ولا ليال العافية أما المعافاة وحا متقانا إنه إلهي كأمان قليو كامغن قليو وحوى البوحون الدنيا سوق هذا إنه إلهي كامغن قليو جشو إنه إلهي كامغن قليو والول إنه إلهي كامغن قليو حمان إنه إلهي كامغن قليو دنبي إنه إلهي كامغن قليو وحوى البقر أنا عبنتهد أما كل بايو إلهي أسألك المعافاة. قف عافمات قبو معركة بيسي لدى سكر قوديو قف عافمات قبو واللحديس اللحاد قبو وحو باهنين تاسوا معنا إله وحال هاي أسألك المعافاة. الدنيا انت نجوغ وحا ربائنا إسيسي معافاة وحوال بؤيغ عافي وحوال بؤيغ النبت جيلي كان أغير إلى كان أغوين لبدا مرتبير إيغ عافي. انت كلمة وحالة في الدنيا والآخرة. آخرة هذا نوحيكو بالله بنيسا قبرك مركا قشد إلهي إبكستو قبرك إيغو إمالها إيغ عافي. سؤاشي اللي وقتك إيغ عافي. عذاب القبر إيغ إلالي إيغ النبت جيلي. معنى هذا وحاوى قبرك يليغو إيمانينو يليغو ديبل. آخرة مركان تغاني إلهو حسابته إيغو أتكينين إلهو نارته إيغا عافي. إلهي وضد إنا لباتكم مرو سيراتك مركان مراي لبات إني نقضوا كام مغنقلي. معنى هذا وحاوى آخر قبرك كبلاوضو مركان دنتو قبرك قلو إلى مالي وقتك أو قدام بيو أو أن جنة قلايو إلهيو إيغا عافي. دبدن إيغا حاي دبدن إيغا مغنقلي. هدي لغو مغنقلي مركا الدنيا لغو مغنقلي آخران لغو مغنقلي محاتي ليسا. قفكي الدون لغو مغنقلي والا إلالينا حمان دنا لغا إلالينا دبدنا لغا إلالينا. قفكي آخر لغو مغنقليني عذاب دنا لغا إلالينا دبات دنا لغا إلالينا. قفكي لوضاس لسوغو درنا الدنيا قفي عنو نقونا دادك دنجعليين آخرا وحو نقونا أهل الجنة إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إله نقدك أهل الجنة. أبو دنبينتي الله سبحانه وتعالى وحويدي سنين دنبينا إنه ضعف. إلهي دنبينا نهي دنبينا ضعف. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. إلهي ودتك النار تكحوريني سنقدر. إلهي أهل الجنة نقدك. آمين لها. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. دعانا ويرتا سوما حلين حتى مرنمو حفظي كد عيسو ولا لها كلاني وسي قدبي ودعاء لو دعيسو تن اوفي عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء عباس مري اذا ادينا كد عيسو ولا لها كلاني وسي قدبي دعاء كلام نور لمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز كد عيسو جري جوابتنا وحاوي ها هدارت إنا أوغاتدنه وإنه 4 صوصعته يكدافن 4 صوصعات والدعاء آد وقيمة بدنو آد وفائدة بدنو كل يبانيست إن شاء الله تعالى. إلى 4 صوصعات لغا قارين وحا لغا ربا إنا دقيستد حفظي ست كفائدي ستد كعمل فشد ولا لها كلا نؤسي قد بسد. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إله درتيس وجعلها ميل والبآد جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة لباتن إيا لبات وبرنامج كي أها 4 والبئيو دعاء عصب دعاء قابا وآد وقيمة بضن ولا لي الحلقوين كي لسو دافتي كو إيا لباتنات إيا تي لباتنات إيا تي 9 إيا 10 بو وحان كسو شيكيني دعوين آد وقيمة بضن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم مرول بكو دعوي سنجري حلقة دي لسو دافي وحان كسو شيكيني دعاءات وقيمة بضن. دعاء ذاسنا وحي إهد إنا إلهي ويدي ستد العفو والعافية
oon dhahnay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam adeerkiisa cabbaas ibni cabdilmutalib markuu u yimid uu u dardaarmay allahumma innii as'aluka alcafwa waalcaafiya fi addunya waalaakhira ama اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة بل وحويري دعاء الدعوة استواتن أوقفي عن حلقة دمات كيداني سؤالا اسويديني أو إهيد دعاء كلام جرتا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مروا البكو دعوة سنجري أو كمده دعوين كآتك أقيمها بضن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مروا البكو دعوة سنجري jawaabtana waxaan dhahnay haa way jirtaa maantoo arbacane ducadaasaan maqrina insha allah tacaala walaalayaal ducadaana waxaa waaye inaa ilaahay weydiisatid athabaat inuu ku sugo nacam inuu ku sugo qofkii la sugo wuu liibaanay adduunyana wuu ku liibaanay aakharane wuu ku liibaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قول ثابت في الحياة الدنيا انتي جوغان إيوه وفي الآخرة آخرة مكيتغان قتادة رحمه الله تعالى وحويري في الحياة الدنيا معنى هذا وحاواي خيرك إن لوافجيو عملك وناكسنا لو أرزاقه آخرنا وحاواي قبرك أوجه الرئي إن عذابت لقبت باديو آخرنا نارت لقبت باديو هدي عذاب القبر لقبت باديو نارتنا لقبت باديو معنى هذا وحاواي إن شاء الله أهل الجنة تحي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم وحو كوري وحو يري قال رسول الله رسولك إليه صلى الله عليه وسلم وحو يري إن القلوب قلوب العباد الدومنك قلوب توذا بين أصابعي الرحمن إلهي أصابع دي سلبكمد أي كجران كقلب واحد هل قلب هل ابن آدم وكل قلبي يصرفها كيف يشاء سدو السيجر ربو أيو أوجد كديا كدبنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو إنو شيغي دعاء لغو دعيستو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك إلهيو اللهم إلهيو مصرف القلوب الله قلبي قد يوم مربى ميل أدرو صرف قلوبنا قلوبتنا وحا أدرتايو كؤادسا على طاعتك طاعة ذا كؤادي إلهيو قلبي أدون كان هو إسجد جدنا قلبي وحلو بحوها وكثرة التقلب إسجد جدنتي سابدا مركاسا إلهي وحاوي دي سنيسا إلهيو قلبي إسجد جدنت بدن كسك دينت هذا يا ربي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا آيات بدن أيو أغاحت لي قلبي إي إسجد جدنتيسا وحو نوشيغي حتى دعوين لغو دعويستو إلهي سبحانه وتعالى سورة آل عمران بيتك أوجوه الرأي آيات آدو قيمة بدنا وجرت وآيات أودن بيسو آيات كريسو آيات داسنا ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء أوجو بدن وكدعو سنجري سيدو صحابينا ورنا وحي إهيد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلبي قد قلبي دين هذا كسك عجيب دعاء ما أنت ويكدو أنت دعوين كهرو وحي أقدو أنت متقانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا آدو بدعوين سجيري لبا الصحابي أيا كوريس أرنتاس دعاء كوباد وحاوري أنس رضي الله عنه وحويري وحا أرك النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء بدينا مركاسا وحا كدهي آمنا بك يا رسول الله رسولك إلهي واكو الرميني هل تخاف علينا ميا نبقيسا وحانا بقيست ميا جرو مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم وحو كير نعم هاو إيدين بقى إن القلوب قلبي يد ابن آدم بين أصابعين من أصابع الله
waxay ku jiraan laba farood oo ka mid ah farooyinka ilaahay yuqallibuhaa kayfa yashaa siduu doono u gidgidiyaa xadiidka labaadna caaisha radiallahu canha ayaa warinayso waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo tukhiru min hada ducaa ducadan waa badisaaye maxaa dhacay nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa caaisha ina alquluuba qalbiyada ibni aadanka bayna asaabici illaahi caza wajal laba faroo farooyinka ilaahay ka mid ayay ku jirtaa faman shaaa azaaqa qofkuu rabo wuu lumina qofkuu rabane wuu hanuunina ilaahu dadka hanuuninaysid nagu dar labada xadiidna waxaa soo saaray imaam tirmidi sheekh alalbani labada xadiidna saxiix ayuu ka dhigay haddaba ducadaas uu nebi maxamed sal allahu alay wasalam badi jiri maxay tahay yaa muqalliba alquluub thabbit qalbii calaa diinik أما وحديقة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك معنى هذا وحاوى يا رب ربك يا أبوري رزقي السيو هو يدي أبه يجعل إلهيو الله قلبي قد قدياتهاي siduu nebi maxamed noo sheegay qalbigayga wuxuu ku jiraa laba faroo farahaaga ka mid ah waa gedgedisay qalbiyada muqallib alquluub ilaahayga qalbiga gedgediyo aniga qalbigayga thabbit qalbigayga waxaa ku sugtaa calaa diinik diintaada ku sug diinta islaamka ku sug qof wanaagsan oo hanuunsan iga dhig ha iga dhigin qof dhummo ama qof wanaagsanaa gadaal ka halaabay ilaahu ha iga dhigin ilaahayow qalbigayga khayrka ku sug ilaahayow qalbigayga wanaagga ku sug hadduu ilaahay qalbigaa wanaag ku sugo xumaanta dhan waa lagaa ilaalina ilaahayow qalbigeenna diintaada ku sug duco kale maanoo dhimanuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mar kasta ku ducaysan jiray jawaabtana waxaa waaye haa haddaa rabtid inaad ogaatidne waa inuu arbacada soo socoto iyo ku dhaafin arbacada soo socoto waa duco aad u qiimo badanoo aad u faa'iido badanoo ku liibaanaysid insha allah tacaala ilaa arbacada soo socota laga gaarayna waxaa lagaa rabaa inaad dhegaysatid xifdisid ka faa'iidaysatid ku camal fashid walaalaha kalena usii gudbisid jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum khayrka agtaada yuu istaagin kilibkan sii gudbi ama adiga xifdiyo dad kale ilaahay waxaad ka magan gashaa inay kugu dhacdo afartan arrinoo aadka u xun ama midkood tan ugu horreyso waxaad ilaahay ka magan gashaa nicmaad haysatay inay hal mar kaa tagto kaa zuusho waxaad kaloo ilaahay ka magan gashaa caafiyo aad haysatay in lagaa qaado xanuun iyo walwal iyo dhib lagugu bedelo waxaa kaloo ilaahay ka magan gashaa hal mar musiibo inay kugu soo degto tan afaraad waxaa kaloo ilaahay ka magan gashaa inay kugu soo degto hal mar ilaahay caradiisa waxaa nasiib wanaage inuu nebi maxamed ku salli sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay duco aan ilaahay aaga magangelayno afartan arrinoo aadka u xun haddaba ducadaas waa maxay goormaana lagu duco وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين برنامج كان لي يراهدو أربعة والبو يدعو عصب وبرنامج أسبوع له ماني والبو أربعة هل دعو آد قابا آد قيمة بدن أيان سوسي ديننا إن شاء الله تعالى أديقنا وحالة قاربا إنا دقيستid أود حفظيsid كدعويستid ولا لها كلانه وسي قد بسيد بخير هنقولين خير الله بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إله درتي سجع ميل والبآت جوتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة دي لباتن إيه السدحات وبرنامج كي أها أربعة والبئيو دعاء عصب دعاء قابا وآد وقيمة بضن ولا ليال حلقوين كي أفرت لصودا في كي لبئي لباتنات كي كوئي لباتنات كي لباتنات
iyo kii 19 waxaan ka soo sheekeynay ducooyin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar walba oo ku duceysan jiray ducooyin aad u qiimo badan ilaahay waxyaalo u weydiisan jiray xalaqadii la soo dhaafay oo ahayd xalaqada 22aad su'aalaan isweydiina waxay ahayd ma jirtaa duco nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku duceysan jiray mar walba mise intaas kaliya ku ekeed jawaabtana waxaan dhahnay haa way jirtaa maanto arbacana insha Allah taala jawaabteeda ayaan bixinaynaa walaalayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam mar walba wuxuu ka magan geli jiray ilaahay afartan arrin waa 4 arrin oo aad u xun loo baahan yahay mar kasta inaa ilaahay ka magan gashid ku duceyso ducadan sidoo ilaahay kaaga magan geliyo afartan arrin aadka u xun dambigaaga Allah dhaafay ducada maanta ku wadane ducooyinka hore dhan way ka duwan tahay waa duco aad u qiimo badan oo ilaahay ka magan gelays 4 arrin oo aad u xun oo haddii mid kamid ah kugu dhacdo nolosha adduunyada aad ka dhacays sidaa darteed waxaan ka rabaa ducadan inaad si fiican u dhageysatid xifdisid ku duceysatid walaalaha kalena usii gudbisid ducadana waxaa soo saaray imaam muslim kitaabka saxiix muslim ayay ku jirtaa haddaba ducada si fiican aan u dhageysano si tartiiba u sheega aan xifdinana insha Allah Allahumma inni a'uudhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaa'ati niqmatika وجميع سخطك آمين مركلا بعلنا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم آمين هذا الدعاء محيتهي معنى هذا محاواي tan ugu horeyso ilaahay waxaad ka magan gelaysaa zawaal nicma nicmadii inay ka zuusho waxaa laga wadaa inay baxdo aysan kuu soo noqonin nicmadii aa haysatay daahirka tan muuqato iyo tan kuu qarsay taa ogtahay iyo taa ogeenba hal mar inay kaa tagto aysan kuu soo noqonin taasaa zawaal la dhahaa ilaahay waxaa ka magan gelaysaa marka nicmo aa haysatay inay hal mar kaa tagto kugu soo noqoweyso tan labaad ilaahay waxaad ka magan gelaysaa taxawul alcaafiya caafiyadii aad haysatay in lagaa xawilo lagaa bedelo lagaa wareejiyo qof caafimaad qaba caafimaadkii laga qaadi waxaa lagu wareejiyay waxaa waa jiro kii hor waa laga qaaday nicma haysatay waa wanaagsaneed waa laga qaaday tan dambe waxaa waa caafimaad haysatay wanaaga haysatay waa laga qaaday jiro iyo musiiba lagugu bedelay taasna waa tan labaad oo ilaahay ka magan geliyay tan saddexaad ilaahay waxaad ka magan gelaysaa fujaa'at niqma hal mar niqma inay kugu soo degto niqma waxaa waaye opposite nicmada oppositekeeda waaye hal mar adoo iska fiyow inay musiibo kugu soo degto ma aragtay qof iska fiyooba hal mar shirkadu lahaa gubatay ma aragtay qof fiyooba caruurtiisa u faraxsanay hal mar madfac ku soo dhacay ma aragtay dad ayagoo faraxsan oo aroos u socda hal mar gaarigii inuu burburay caruurta ku dhamaatay niqma hal mar kugu soo degtaa la dhahaa taasaa ilaahay ka magan fujaa'at niqma hal mar niqma inay kugu soo boodaa ilaahay ka magan gelaysa tan afaraadna ilaahay waxaa ka magan gelaysa sakhatihi ilaahu ha ii caroonin ilaahu ha ii xanaagin wax walba ha dhaco laakiin ilaahu waxaan kaa magan galay sakhatik caradaada inay igu soo degtaan kaa magan galay hadduu ilaahay kuu caroodo yaa wax kuu qaban karo qofna taas waxay ahayd macnihiyo gaaban waaye hadda waxaan rabnaa inaan kor istaagno ducada macnaheedoo dhammaystirano shaamil ah maxaa waaye leena ducaadu qiimo badan waayo oo nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku duceysan jiray qof walba oo muslim u baahan yahay inuu ku duceysto macnaheeda rabnaa marka si detail deep inaan xoog gudaha u galno insha Allah taala hal oo kor istaagayna tan koobaadana ku bilaabayna Allahumma inni a'uudu bika min zawali ni'matika ilaahayow Allahumma ilaahayow rabbigii abuurayow
rabbigii hooyadii iyo aabahii iga jeclaayo acuudu bika waxaan kaa magangala. qof la magangala ilaaha ugu weyn. ilaahay hadduu wax kaa magangeliyo wax kuu samayn kara ma jirto. ilaahigii awooddaas lahaa waxaa leedahay acuudu bika waxaan kaa magangalay min zawaali nicmatika. nicmo aa isiisay ilaahayow inay iga zuusho, inay iga tagto, waa kaa magangalay. nicmatul islaam ugu weyn tahay ilaahu inay iga zuusho oo iga tagto, waa kaa magangalay. waxaan kaa magangalay nicmooyinkan aa isiisay inay iga tagaan. nicmo wanaagsan, nicmo badanaa isiisay. caruuraa isiisay, xaasaa isiisay, quruxaa isiisay, hadal waa hadla, waxaan maqlaa, waxaan arkaa. nicmada ma koobi kari. ilaahayow nicmooyinkaa isiisay inay iga tagaan, waa kaa magangalay ilaahayow. adigana waxaa loo baahan yahay waxyaalaha nicmooyinka inay kaa tagaan sababta u noqonaya inaa iska daysid oo iska dhaaftid oo ugu horeeyo inaa ilaahay caasisid. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaa badisid waxyaalaha nicmooyinka kuu haynayo. waxna nicmaday kaa kaxaynaysaa oo dembiga iyo macsiyada inaa ilaahay ka gashid. waxna nicmadii oo haysatay way kuu joogaysaayo way kuu siyaadaysaa. tan kaa kaxaynaysa iska ilaali. tan nicmada kuu siyaadinaysana badi. maxaa waaye tan nicmada kuu siyaadinayso? waa ashukr, inaa ilaahay u mahad celisid siduu ilaahay subxaanahu watacaala in shakartum la asiidannakum. haddaa igu shukrisaan ii mahad celisaan nicmadaa haysataan waa idiin siyaadina, waa idiin badina, waa idiin barakayna. inaa ilaahay ugu mahad celisid culeyskii kugu haysa maxay tahay? tan labaad ilaahay waxaad ka magangelaysaa taxawul alcaafiya. caafimaadkaa haysatay, qof caafimaad qabay, caafimaadka in laga qaaday, jiro lagu bedelay, jiro uusan ka kacaynin, kansaraa lagu bedelay, dhiigkaraa lagu bedelay, sokoraa lagu bedelay. caafimaadka ninkii iska ordaayay hal maruu fariistaybu handicap buu noqday. ilaahay waxaa ka magangelaysa marka nicmo caafiye aa haysatay in lagaa bedelo, lagugu bedelo musiibo ama jiro. marka taas ilaahay ka magangeshid waxaa loo baahan yahay ilaahay inaa weydiisatid inuu ku siiyo caafimaad. allahumma inii as'aluka alcafwa waalcaafiya inaa ku ducoysatid. idan ilaahay ka magangal markasto inuu ilaahay kaa qaado caafimaadka. laanna ilaahay hadduu kaa qaado caafimaadka kaa qaado waxyaalaha aa rabtay xataa ma samaysan kartid. meeshaa rabtid ma aadi kartid. adduunyadaada ma samaysan kartid. bal waxaa laga yaabaa waxyaala aa rabtid xataa aakhara inaad u samaysatido qiyaami leyl u istaagtid ama aa soontid inaadan soomi karin. sidaa darteed waxaa leedahay ilaahayo waxaan rabaa inaan noqdo addoon adiga kuu shaqeeyo. waxaan rabaa addoon jismigayga iyo caafimaadkayga u isticmaalo daacadaade. ilaahayow caafimaadka ha iga qaadin. acuudu bika min taxawuli caafiyatika. tan saddexaad ilaahay waxaa ka magangelaysa fujaa'at niqma. hal mar niqma inay kugu soo degto. way kala xanuun badan yihiin, labadaba waa xanuun. musiibo qofka inay hal mar kusoo degto iyo inay tartiib tartiib ugu soo degto way kala xanuun kulul yihiin. adigoo iska fiyoobo faamilkaaga meel au dirtoo faraxsan haddii lagu yidhaha faamilkaaga kulli gaarigaa la gadoomay way ka naxtin badan tahay. markuu isbitaal jiifay oo wax badan xanuunsanaa oo kadib dhintay way kala xanuun badan yihiin. marka ilaahayow waxaad leedahay ilaahow waxaan kaa magan galay musiibo hal mar inay ugu soo degto oo aan filanaynin, waa kaa magan galay. tan afaraadoo ugu weyn waxaa leedahay ilaahow waxaan kaa magan galay jamiici sakhatika. ilaahayow sakhadkaaga, xanaagaaga inaa igu xanaagtid, inaa igu carootid, ii xanaagtid adiga ilaah waa kaa magan galay. hadduu ilaahay kaa xanaago waa kuu dhammaatay. qof wax kuu qaban karo haba yaraatay, laa gaal walaa muslim walaa sheekh walaa shaytaan, qof wax kuu qaban kara haba yaraatay ma jirto. qofkuu ilaahay ka carooday adduunyana wuu ku halaagsama, aakharana way aga daran tahay. man acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka. waxaa laga adduunka maciisha danka inuu ku noolaado.
aakharana naar jahannam ay u dambayso. sidaa darteed waxaa leedahay ilaahu waxaan kaa magan galay jamiici sakhatika. ugu dambayntii allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dembigeena dhaafo, naarta naga xoreeyo, ahlu janno naga dhigo. afartan arrinoo aadka u xunne inuu ilaahay naga magangeliyo. aamiin dhaha. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ilaah dartiisaa idin jeclahay. ducooyinka gaagaaban oo khayr adduuniya aakhira idin wado, masaa'ibtana idinka magangelinaysaan, idin soo gudbinaa mar walbo. idinkana waxaa idinka rabaa inaa xifdisaan oo ku camal fashaan. intaasaan rabaa, xifdi, ku ducayso saa ajirka ku helo, walaalaha kalena usii gudbi, ha iloobina insha allah. duco kale maanoo dhimanoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mar kasta ku ducaysan jiray. jawaabtana waxaa waaye haa. haddaa rabtid inaa ogaatidne waa inuu arbacada soo socoto iyo ku dhaafin. arbacada soo socoto waa duco aad u qiimo badanoo aad u faa'iido badanoo ku liibaanaysid insha allah tacaala. ilaa arbacada soo socota laga gaarayna waxaa lagaa rabaa inaad dhegaysatid, xifdisid, ka faa'iidaysatid, ku camalfashid, walaalaha kalena usii gudbisid. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. khayrka agtaada yuu istaagin. kilibkan sii gudbi ama adiga xifdiyo dad kala bar. nebiga sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida wuxuu u soo galay cabdullaahi ibni mascuud asigoo ducaysanayo. wuxuu ku yidhi sal tucta. cabdullaahiyo waxaa rabta weydiiso waa lagu siinaa. haddaba cabdullaahi ibni mascuud ducaduu ku ducaystay وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. برنامج كان لي يراهدو 4 والبو يدعو عصب، وبرنامج اسبوع له ماني والبو 4 هل دعو آد وقابا آد وقيمة بدن ayaan soo sii daynayna insha allah tacaala. adigana waxaa lagaa rabaa inaad dhegaysatid ood xifdisid, ku ducaysatid, walaalaha kalene usii gudbisid. bakhiil ha noqonin. khayr allah bis. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. walaalayaal meel walba aad joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii 24 oo barnaamijkii ahaa arbaco walba iyo duco cusub, duco gaaban oo aad u qiimo badan. walaalayaal arbacadii lasoo dhaafay oo 23aad iyo tii kasii horreysay xalaqada 22aad 21aad 20aad 19aad iyo 18aadba waxaan kasoo sheekaynay ducooyin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mar walba ku ducaysan jiray oo ka mid a ducooyinka aadka u qiimaha badan. maanta ducada 7aad ayaan rabaa inaan kula wadaago oo ducooyin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam aad ugu ducaysan jiray ama saxaabadiisa uu baray sidii mar kasta ugu ducaystaan. walaalayaal adduunka nicmadiisa ma taagno. waa aragtay qofaa maalin lacag leh, maalin waa faqiir, maanta wuu fiyow yahay, maalin wuu xanuunsan yahay, maalin caruuraa u joogto, maalin caruurta way ka tageen, maalin waa faraxsan yahay asii xaaskiisa, maalin asii xaaskiisu isku xanaagsan yihiin. yacni nicmo taagan ma lahan oo sideeda u taagan. sidaa darteed waxaa lagaaga baahan yahay inaa ilaahay weydiisatid inuu kuu sugo nicmaduu ku siiyey. ilaahay wuxuu bixiyaa nicmooyin oo fadligiisa iyo karamkiisa uu ku bixiya. waxaa naga shaqaysayna maaha, karamkiisa uu ku bixiya. nicmaduu ilaahay ku siiyey waxaa weydiisataa inuu ilaahay kuu sugo. waxaad ka magan gashaa inuu ilaahay kaa qaado. xalaqadii lasoo dhaafay ayaan ka sheekaynay ducooyinkaas oo ilaahay aga magan gelaysa nicmooyinka inuu kaa qaado. maantana insha allah tacaala waxaan rabaa inaan kula wadaago 2 duco oo aad u gaaban oo aad u qiimo badan. tan ugu horeyso maalin maalmaha ka mid ah nebi maxamed ku salli sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu u soo galay cabdullaahi ibn mascuud oo qur-aan aqriyey. suurat الnisaa 100 aaya ugu horreysuu aqriyey. markaasuu ducaysanayay. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi sal tucta, weydiiso waa lagu siinaahe. kadib cabdullaahi ibn mascuud wuxuu ku ducaystay ducadan aadka u qiimaha badan. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalamne
وجوه وأقري. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. الله أكبر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حوليه إله وحان كويديستي إيمان لا يرتد نقولين قال لما وكام قال إيمان كأسيس النعمة وازما إله يوسف ونعيما لا ينفد نعمة أن بدأ مانين بصعوت له إيه ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. جنة كلمة ويديسن وحو ويديسن النبي محمد إنه جنة الخلد وصان ولا نقضى. هذا هو لا دعاء فيرسي أقيمها بضنتهاي إلهي وحا ويديسن سدح أخرينو آدو قيمة بضن النعمة إلهي بحيه تنكوبا إيمانا ويديسن إيمانك يا بحيو إلهي سبحانه وتعالى إلهي إيمانا لغن قنين dadka qaarkood subxaan allah waxaa arkaysaa diintiisa wuxuu u gadanaa caleeshan adduunyo maanta muslim waaye biri munaafiq waaye biri waxaa waaye hebikrad marba wuxuu sameynaa sababta waxaa diintiisa qiimo lama lahan. sidaa darteed adiga waxaa leedahay ilaahayo waxaan kaa magan galay iimaan laa yartad aan noqonaynin marna isbedelay inuu kor u kaca maahine aan hoos u dhicaynin. waxaa kaloo ilaahay weydiisanaysa nicmooyinkuu ku siiyey caafimaaduu ku siiyey caruuruu ku siiyey shaquu ku siiyey xooluu ku siiyey wax badan nicmooyinkuu ilaahay ku siiyey waxaa leedahay ilaahu waxaan rabaa nicmooyin aanba dhammaanayninba wadle ilaahu ii wadle adigana saa ku heysi nicmooyinkaas waxaa loo baahay nicmo kastoo ku siiyey inaad tiraahid allahuma laka alxamd inaad tiraahid عملا وقولا أو مهد عليس إلهي لأن الله سبحانه وتعالى وحونا وشي كتاب كيس لئن شكرتم لأزيدنكم هذا إلهي نعمة وكسي أو مهد عليس إلهي سبحانه وتعالى وكو بضنا وحاكلوا إلهي ويديسني النبي محمد إنا جنة صان كله نقط مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في همة العالية في جنة كريمة ويديسني وحا ويديسني جنة النبي محمد جنات الخلد إنا لجوكتي نبي محمد جنة وقلا نودو تبارين جنة وقلا ماشي أسر ريسون وقلا هذه جنة بسمرت إله وحاله ومرافقة محمد رفيق وحا قفك لصا يرافقه وحا ربا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جنة إنا رفيق أولا نعضو أون لصقضو أون كتغينا ربا جنة ويدي سنيسا إلهي هنو أخبالو. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين لها إلهي أنه أقبله. وحاك الله جرت الدعاء كله أو إلهي أكو يديسنيس نعيم تيس لح نعمة ترينيس أو إلهي ويديسنيس إنه كو هاي وكو سجو دعاء نوحي وضعتا لح أخرين وآدو قيمة بدن وحا إلهي ويديسنيس لح أخرين وآدو قيمة بدن وقف والبو مسلم وباهي هذا بدو حدث محيتهي قرمانا لأقرستا. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. مركرا كعلينا يسفي عنه لقيست. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. هذا جمعتينا دعوي سني سيدني ماشا دهيس اللهم إني أسألك وحاليضه اللهم إنا نسألك إنا جمعك دهيس أمرك وحاليضه اللهم إنا نسألك إنت كلمة اسكمت إني يا وحاك دهيس إني تنكوبات اللهم إني أسألك موجبات رحمتك إلهي وحاوي كوي دي سنسا بالله وجيبه اللهم يا الله إلهي يا أبو ريو مقعيدا وناكسن له وحان كويدي سنة
muujibaati raxmatik wax kasto oo raxmadaada ii geynayo wanaaga salaada soonka wax kastoo raxmadaada ii waajibinayo ilaahu waa ku weydiistay tan labaad wa cazaa'ima maghfiratik ilaahayow caziima isi khayrka ku sameeyo saa igu dembi dhaaf tan saddexaad wassalaamata min kulli ithm ilaahayow iiga badbaadi wax kastoo dembi ah ama dembi ii kaxaynaya ii gelinaya ilaahu iiga badbaadi tan afaraad walghaniimata min kulli bir ilaahayow wanaag kasto khayr kasto waxaa iga siisaa wax badan iga sii tan shanaad walfawza biljanna ilaahayow waxaa iga dhigtaa dadka ku guulaysto ama aad gelisid jannada ilaahu iga tan lixaadna wannajaata min annaar ilaahayow naarta iga badbaadi dadka naarta ka badbaadayo oo aad ka badbaadinaysid ilaahayow igu hal mar waxaan fiirisaa bis ducadan si isugu xigxigto kow waxaa weydiistay ilaahayow as'aluka muujibaat raxmatik wax kastoo raxmadaada igeynaya isiyaa tiri kadib waxaa ilaahay weydiisatay cazaa'im maqfirad inuu go'aan ku siiyo oo wax wanaagsan ku samaysay lagugu dambi dhaafo markaa jannada weydiisatay wax maqfira ku samaysan weydiisatay tan saddexaad waxaa weydiisanaysaa inuu kaa ilaaliyo wax kasta oo dembi kuu gelinayo tan afraad waxaa sii weydiisanaysaa khayrkana wax badan iga sii tan shanaad waxaa weydiisanaysaa janno inuu ku geliyo tan lixaadna waxaa weydiisanaysaa naar inuu kaa badbaadiyo duco ka qiimo badan weligaa ma aragteen haddaba macnaheeda maadaama aan ogaanay waxaan rabnaa inaan ka jawaabno goormaa lagu ducaystaa waqti walba ku ducayso sujuudda ku ducayso salaada kadib ku ducayso mar allaale markaa rabtid ku ducayso waqti ma lahan meelna ma lahan waa duco nebigeenana baray aad u qiimo badan ilaahay ku weydiisanaysid waqtigaa rabtid iyo meeshaa rabtid sidaa darteed mar kasta ku ducayso walaalaha kalena u sii gudbi bakhiil ha noqonin ducada agtaada iyo istaagin mar kasta khayrka walaalaha u gudbi adiga xifdi walaalaha kala bar ama kilibkan u gudbi jazaakum allah khayran baaraka allah fiikum wa inuu xalaqaad soo socota iyo duco cusub جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته